بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولليال إلهي تبارك وتعالى مهد إسكاله إلهي تبارك وتعالى وحكمها السنيهي نعموين كاترة بدن له وينوغلي وأيقوه ريسو نعمة إسلامك أما نعمة إسلام نمدا iyo iimaanka nicmadaasi oo ah nicmo uunan helin qof walba ilaa in yar oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u naxariistay mooye nicmadaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala yaan kaga mahadinaynaa waxaan sidoo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga mahadinaynaa caafimaadka uu ina siiyey caafimaadkana oo aan uga faa'iidaysanayno waqtiyadeenna iyadoona ay jiraan dad fara badan oo aan nicmadii ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala si sax aan uga faa'iidaysan ilaahay baa mahaddaasi iska leh oo inaga dhigay dad markaasi waqtiyadooda wax badan oo ka mid ah ilaahay diinkii ku bixiya tabaaraka wa tacaala walaalayaal maanta caawa waxaan ku ballansannahay jeedinta ama faahfaahinta mowduuc xasaasi ah aadna u xiiso badan mowduuca wuxuu ku saabsan yahay masayrka ragga iyo dumarka iyo sida loo maareynayo masayrka ha noqdo mid yimaada guurka kadib ama ha noqdo mid yimaada guurka ka hor labadaba keebaa xaq ah sideese loo maareeyaa taa wey midda insha allahu tabaaraka wa tacaala aynu isugu nimaanay ilahay waxaan ka baryaynaa muxaadarada bilowgeeda inuu ilaahay noo fududeeyo dhammaadkeedana ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo waxaan u mahad celinayaa xiriiriyaasha barnaamijkan kuwa oo isku xiraya bulshada aad baan uga mahad celinayaa hadday ahaan lahaayeen farsamiiqaanada idaacadda daaru qur-aan oo isu kaashaday sidii uu barnaamijkan ku hirgeli lahaa xoog iyo xoolana ku bixiyey sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalaha reer cadaado ama degmada cadaado walaalaha ku sugan oo si toos ah inoo dhageysanaya gobolka mudug ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa intaa kadib walaalayaal waxaan nagu kalifay inaan mowduucan dooranno ka hadlidiisa wax kale ma aha waxaan doonaynaa inay inoo hagaagaan qoysaskeenna haddii ay hagaagaan qoysaskeenna waxaa hagaagaya guud ahaan ummadda oo dhan maxaa yeelay qoysasku ama qoysku sidiisuba waa dhismaa asagoo markaa kasoo bilaabanaya shakhsiyaad kadib buu wuxuu isku bedelayaa qabiil buu isku bedelayaa kadibna isku bedeli doonaa tuulo kadib wuxuu isku bedeli doonaa degmo kadib dal dhan iyo waddan dhan dowlad dhan buu isku bedelayaa marka saa daraaddeeda waa in la hagaajiyaa qoyska waa in la hagaajiyaa la wanaajiyaa la islaaxiyaa akhlaaqda wanaagsanna la baraa oo lagu hagaa si markaasi bulshada qoyska uu soo saarayo ay u noqoto bulsho hagaagsan dhinac walbana ka dhisan maadaama asalkiiba uu ka hagaagsan yahay wanaajintaas waxaa qayb weyn ka qaadanaya in la wanaajiyo doorashada koowaad oo in badan culimmadu ay sheegaan in ruuxa uu hagaajiyo doorashadiisa koowaad
uu iska fiiriyo ruuxa uu dooranayo saa daraaddeedna ninku waa inuu markaasi uu doortaa hooyo ku habboon in ay dhasho ubadkiisa gabadhuna ha doorato nin ku habboon in uu aabbo u noqdo caruurteeda macnaheedu waxa weeye doorashada hala wanaajiyo si markaasi dad wanaagsan idinkaga farcamaan xaaladiinuna u hagaagto waa inaad doorashada hagaajisaan waxyaabaha sidoo kale qoysaskeena hagaajinaya waxaa ka mid ah kalsoonida hala wanaajiyo tuhunkana ha laga saaro qoyska oo mar walbo kalsoonida hagaagsanaato tuhunkana qoyska ka dhex baxay waxay noqonayaan xaaladooda xaalad wanaagsan maxaa yeelay tuhunku wax wanaagsan ma diinteenuna ma amaanin akhlaaqda wanaagsanna ka mid ma ah laba ruux oo guri isla jooga haddana istuhunsan ninkoo xaaskiisa tuhunsan iyo xaaskii oo ninkeeda tuhunsan taa iyada si gaar baan uga hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala oo mawduuca ayaan gudaha usii geli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala walaalayaal masayrku waxa uu maanta ugu horeeyaa waxyaabaha burburiya inta badan qoysaska taa baana kalifaysaa in laga hadlo oo laga digo si adag weliba looga digo taa ayaa markaasi sababayso inta aanan gudagelin mawduucaygii ahaa masayrka oo aanan ka hadlin waxaa marka hore insha allahu tacaala aan tilmaamaynaa hal iyo laba iyo saddex waxaan ka tilmaami doonaa insha allahu tabaaraka watacaala waxyaabaha burburiya qoyska waxyaabaha burburiya baan wax yar ka taaban doonaa insha allahu tabaaraka watacaala kadib baan gudageli doonaa waa maxay masayr sidee buu ku yimaadaa sidee baa loola tacaalaa waxyaabaha qoysaska burburiya waxaa ka mid ah ninka oo aanan aqoonin qadarka xaaskiisa iyo gabadha oo aanan garanaynin qiimaha ninkeeda macnaheedu waxa weeye ninka inuunan garanaynin xaaskiisa qadarkeeda qiimaheeda qaayaheeda sharafkeeda inuusanba garanayninba oo ay agtiisa ka liidato oo ay agtiisa wax yacni waxa weeyaan iska fudud ay ka tahay xumaynta uu xumaynayo iyo samaynta maanta uu samaynayana aynan waxba isku kiidhaaman labaduba iskugu mid ay tahay unan garanaynin xaaskiisu waxa ay guriga ay ka tahay sidoo kale ninkii inuusan haweeneyda inaynan garanaynin ninkeeda asagana qiimihiisa iyo qadarkiisa inaynan garanaynin oo aynan weyneynaynin oo aynan ilaalinaynin xuquuqda uu markaa ku leeyahay taa iyadana way keensanaysaa in qoyskaasi burbur fara badan uu ka dhaco saa daraaddeedna ay la fududaato dagaal kastoo soo dhex kala galana uu noqdo dagaal aan damaynin oon dhammaad lahayn waxyaabaha sidoo kale qoysaska burburiya waxaa ka mid ah maamulka iyo markaasi awoodaha oo isku ekaada maamulkii iyo awoodihii baa isku ekaadayba oo labada qofooda wax maamulaysa oo guriga joogtaay lama kala garanayaa ninkii ah yaase naagtii ah yaa wax maamula yaase la maamulaa yaa guriga yacni waxa weeyaan wasiirka ka ah yaasan ka ahayn lama kala garanayo haweenaydan waxay rabtaa inay taliso ninkana wuxuu rabaa dhankiisa inuu ka taliyo yacni taasi waa wey haweenaydu waxay meelo qaar ay ku talin karta way jirtaa ninkana meelo gaaroo asaga loogu talagalay inta badan waa jiraan laakiin waa in la kala garanayaa waay oo haweenaydunu garanayso yacni waxa weeyaan qadarkeeda iyo meeshay gaarsiisanta ninkuna uu garanayo meesha uu asaga gaarsiisan yahay haweeneyda ninkeeda ay qadarisaa ninkana naagtiisa uu qadariyaa awooduhuna ay noqdaan dee ilaahay tabaaraka watacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegay ninka inuu yahay kan talinayo kan amarka ka soo fulayo kan yacni waxa weeyaan guriga laga amar qaadanayo inuu ninka yahay bay shareecaduna islaamka tilmaamaysaa bal kabaran haweeneyda haddii isa soo taagto tirahdo anigaaba taliyo fasax kaama qaato meeshaan doonaan iska aadaa meeshaan doonaan iska wacdaa sidaan doonaan u dhaqmaa biilka sidaan doonaan u maamulaa wax aad agteeda ka tahay male hadday sidaa dhahaysana waxaa dhacaysa in badan in laisku fagto oo laisku fagtaa dhacaysa macnaha qodobka saddexaad waxa weeye kalsooni darada ka jirta qoysaska badankooda yaa waxay sababaysaa isku dhaca
isku dhaca ka yimaada bay sababaysa idinku waxaad hadda sheegaysaa un masayrka iyo howlihii waxyaabo kale baa jiro masayrka aan ahayn oo qoysaska burburiya in laga hadlana ay mudan tahay wey waxaa ka mid a marka kalsooni darada ka jirta qoysaska badankooda yaa waxay sababaysaa marmarka qaarkood in qoyskaas uu burburo maxaa yeelay kalsooniya loo baahan yahay haweenayduna inay ku kalsoon tahay ninkeeda ninkana xaaskii ku kalsoon kalsoonida in la fahmaa loo baahan yahay kalsooni maxay tahay ilan in badan waxaa laga sheekeeyaa kalsooni waa maxay kalsoonida haweenaydu waa in ninkeedu ay yacni waxa weeyaan boqolkiiba boqol aaminsan tahay inuusan khiyaanaynin inuusan garabkeeda ka baxaynin inuu caawinayo inuu xuquuqdeeda ilaalinayo inuu diinkeeda ilaalinayo inuu akhlaaqdeeda ilaalinayo inuu nafteeda ilaalinayo in xoolaheeda uu ilaalinayo caruurteeda inuu u xifdinayo haweenaydu waa inay sidaat ninkana sidoo kale waa in xaaskiisu yacni waxa weeyaan kalsooni ku qabaa unan shaki ku jirin oo inan isdhehaynin muxuu xaaskaaga amay dib wax kale ka keentaa amay nin kale wax kula wadaa inamay guriga khiyaanaysaa amay biilku khiyaano ku wadaa waxyaaba noocaas oo kale intaan ninkay tashwiishkaas inuusan ku furnaynna dee meesha waa ku jirtaa kalsoonida marka waa qodob muhiima oo in la tilmaamo mudan weeye hadduu meesha ka baxana waxaa dhacaya in qoyska uu burburo waxyaabaha qodobka afraad kusoo koobaya in qoysaska waxyaabaha burburiya waxaa ka mid a masayrka oo ah qodobka soo socda ee aan ka hadli rabno caawa aan rabno inaan isdul taagno ka asagana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qoysaska burburiya oo tuhunku qayb ka yahay oo kalsooni daradu qayb ka yahay marba hadduu qoyska soo kala dhexgalo tuhun noocaas oo kaleenta ah waxaa dhacaya in badan in qoyskaas uu burburo uu ninkana uu qaato macnaha wax weeyaan go-aan degdeg ah oo gabadha uu ka qaato marka aan gudagalno qodobkeennii ku saabsanaa masayrka horta su-aasha waxa weeye waa maxay masayr waa maxay masayrku sidiisaba waa maxay qeexid buu u baahan yahay tafsiir buu u baahan yahay masayrku waxaa la yidhaahdaa waa dareen kacsanaan ah ee ku yimaada qof aad danaynayso marka aad qof aad danaynayso ku aragto wax aadan la jeclaysanaynin sooma masayrku macnihiisu waxa weeye waa dareen kacsanaan ah ee ku yimaada ee kugu yimaada kadib markii qof aad adigu danaynaysid aad ku aragto waxyaaba adigu aadan jeclayn waxyaaba adigu aad dhibsanayso markaad ku aragto yaad hinaastaa ood masayrtaa masayrka marka qodobkaas ayuu leeyahay qaabkaas ayaana wax loo fasiraa masayrku marka isagaa noocyo ah waa kala baxaa wuxuu u kala baxaa dhowr nooc laakiin laba nooc baan ka soo qaadanaynaa labadaa nooc waxa weeye mid waa mid yacni waxa weeyaan fitri ah midna waa mid qaatil ah midi waa mid lagu abuuray qofka masayraya ama nin ha noqdo ama naag ha noqotee waa mid lagu abuurayoo ayba u dhalatayba ilaahay baaba ku abuurayba midina waa mid qaatil ahoo dilaya ama naftaaduu dilaya ama naf qof kaleu goynaya marka labada qayboodna waan kala sheegi doonaa masayrku sidoo kale waxaa jira masayr la ogolyahay uu allah tabaaraka watacaala raalli ka yahay iyo masayr la diiday oo aynan diintu ogolayn oo dembi ah midka koowaad oo ah kii ay shareecadu fasaxday waa midka marka qof xigtadaada ah ama kuu dhow ama xaaskaaga ah ama ninkaaga ah aad ku aragto wax xun isla markaana waxaa xun aad uga masayrto qofkuu doono ha ahaado wax xun baad ku aragtay wixii xun baa kaa keenay inaad masayrto oo tiraahdo waxaad ku socoto waa wax xun saa daraaddeeda xumaantaas ayaad uga masayraysaa masayrka marka shareecada jecesha waa midka midna waa mid yacni waxa weeyaan la reebay waana midka aan tilmaami rabno oo qof xigtadaada ah marka aad yacni waxa weeyaan uga noqoto iyada laftirkeeda way soo gelaysaa xumaan inaad uga noqoto raalli uga noqoto raalli uga noqoto waxaa kaloo sidoo kale soo gelaya midka la diiday midka haweenku sameeyaan ama ay yacni kadib markii lala guursado ninkooda la guursanaya kadib ayay dareemaan saa daraaddeeda masayrka noocaas asagana waa jiraa asagana sidoo kale waan ka hadli doonaa oo asagana waxaa jira mid shareecadu ogashahay iyo qaab loo masayrayo oo shareecadu ogashahay iyo qaab la diiday intuu waa jirta waxaa intaasoo idil
inoo koobaya xadiidkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo ahaa nebigu sal alla alayhi wasalam wuxuu noo sheegay noogana kala qaaday masayrka midka ilaahay jecel yahay iyo midka ilaahay necab yahay tabaaraka watacaala oo nebigu waa midka xadiiska ku leeyahay ina min alghayrati maa yuxibu allah wa minha maa yubgidu allah nebigu salawaatu rabbi wasalamu caleyh wuxuu leeyahay masayrka iyo hinaasaha waxaa ka mida buu nabi sal alla alayhi wasalam yidhi mid ilaahay jecel yahay tabaaraka watacaala iyo mid ilaahay necab yahay tabaaraka watacaala fa ama alatii yuxibuha allah midka ilaahay tabaaraka watacaala uu jecel yahay waa midkee nebigu wuxuu sal alla alayhi wasalam falghiiratu fi riba buu nabi sal ly slam leey yacni ghiirada iyo masayrka sababka ku yimaada waa masayrka sababtala wey oo yacni waxa weeyaan ama qofa xigtadaada ahaad wax xun ku aragtay xaalad kalea soo kor sabab buu leey xaalad cusub oo sax ah yaad ku masayraysaa wa ama alghiiratu aladii yubqiduha allah falghiiratu fi gayri riba buu nabi sal ly slam leey masayrka midka ilaahay necab yahay una carooda waxa weeye midka aanba sababta lahayn iska masayraysaa tashwiish baa ku furan yacni waxa buubis baa ku furan balaayaa ku furan way iska masayrtaa un maanta dhan shaki bay ka qaadaysaa xaggee ka timid xaggee u socotaa xaggee maanta dhan telefonkiisa ka daba wareegaysaa telefonkeedu ka daba wareegayaa yacni wax aan jirin weye macnaha masayrka noocaasoo kaleenta ahna nebiga sal alla alay wasalam wuxuu ku tilmaamay midka ilaahay necab yahay tabaaraka watacaala xadiiska waa socday wa ina min alkhuyalaa maa yubqidu allah wa minha maa yuxibu allah baa ku jirtaa iyadana xaraga kibirka nebi sal alla alay wasalam iyo xadiiska uga sii waram laakiin ujeeddada waxa weeye masayrka nebi sal alla alay wasalam tilmaamayo ee ilaahay jecel yahay tabaaraka watacaala yaa la doonayaa qof walba inuu ku sifoobo macnaheedu waxaa laga wadaa maalan haweenaydu kaba soo qaadba ninkeeda nin yani haweenay kale la guursaday saabay ku masayrtay dee waa masayr sababla markaa sabab buu ku yimid way mudantaa marka inay xoogaa yara masayrto iyadoon xadgudbaynin inay xuquuqdeeda dhacsato oy xoogaa yara masayrto way mudanta taa la diidi maayo laakiin waxaa ilaahay tabaaraka watacaala ka caroonaya waxa weeye midka bilaa sababka bilaa sababka ku yimaada saasuu nabi sal alla alay wasalam noo sheegayaa lamana ogola midkaa bilaa sababka ku yimaada oo hadda inta badan dumarku ay sameeyaan kana hadli doono sidoo kale walaalayaal sharcigu markii loo bandhigo masayrku yani muxuu ka qabaa arrinkan haweenku ama aan idhaahday raggu inay guursadaan hal dumar wax ka badan su-aashaasaa qof walba laga yaaba inuu isweydiiyo maadaama meeshu ay tahay yacni masayrku waxyaabaha keena ay tahay in dumarkii lala guursado ama ay ka baqaan in lala guursado taa ay tahay masayrku ku imaanayo dee horta guurka ay ka baqayaan ma banaan yahayoo raggu miyay ku qaldan yihiin mise sharcigaaba qaba waa ku saxan yihiin oo way samayn karaan haweenay kale ama haween kale way raadin karaan way guursan karaan sharcigu islaamka ah masayrku marka loo eego yacni marka loo eegaan idhaahdee guursashada hal dumar wax ka badan sharci islaamku waa qabaa oo allah tabaaraka watacaala qur-aankiisu ku sheegay kuna caddeeyey aayad dhan buu ilaahay tabaaraka watacaala ku soo koobay arrimaha noocaas oo kaleenta ah oo kaa qancinaysa wax kastoo ku saabsan ragga ku saabsan iyo guursashada haweenka labaad ama haweenka saddexaad ama haweenka afraad iyo inay u bannaan tahay inay afar guursadaan aayadduna cadaaladda bay simaysaayo waxay ka hadli doontaa insha allahu tacaala awooddaadu ma dhanta waana ka sheekayn doonaa insha allahu tacaala oo allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahy fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida aw maa malakat aymaanukum dalikum adnaa anlaa tacuuluu macnaheedu waxa weeye ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahy war guursada waxa idin wanaagsan oo dumarka ka mid ah guursada ha u guursada laba u guursada oo saddex u guursada oo afar u guursada fain khiftum anlaa tacdiluu haddaad ka baqdaan inaad u cadaalad samaynaynin oodan u cadaalad fali karin haddaad saa ka baqdaanna dee fawaaxida hal isaga adkaysta halkiina iska haysto halkiina iska barakaysta waxba ha boodboodina aw maa malakad aymaanukum ama gacmihiinu waxay kasbadeen taa iyaduna way kuu bannaan tahay oo addoontaadiyaa soo hoosgalaysa inkastoo hadda addooni inayn jirin nebigu ilaahay tabaaraka watacaala marku wuxuu noo sheegayaa noona qeexayaa inay bannaan tahay arrimaha noocaas oo kaleenta laakiin waxyaabaha laga digi waxaa ka mid a
in adiga oo aanan awoodin inaad maarayso noloshooda maarayso u cadaalad samayso yacni waxa weeyaan jacaylka aad wada siiso yaa xuquuqda kale oo yacni waxa weeyaan xuquuqda maaliga ah aad wada siiso haddaadan awoodi karin maxaaba kuu geeyay dulmi wey inaad guursataaba dulmi marka ayada waana midda ragga Soomaaliyeed ay u badan yihiin dumarka Soomaaliyeed marmarka qaarkood xaq ay ugu yeelanayaan inay masayraan sababtoo waxay aaminsan yihiin inaynan yacni waxa weeyaan insan ka soo bixi karin sababtoo waxa loola jeedaa ama waxay ayagu ka wadaan dee waxay og yihiin xaaladiisay og yihiin biilkii inuu la dhacdhacay yaa iyada laftirkeeda xataa xuquuq fara badan inay ugu sabirtay xuquuq fara badan ay ugu tagtay arrimo fara badan ay u baahneed bay u sabirtay u dulqaadatay way og tahay marka inuunan awoodi karin haweeney kale inuu guursado marka iyadoo sidaa xaalku yahay hadduu iska guursado un waxaa dhacaysa in ay masayrto bal ay aada u xanaaqdo intaa baan kuusoo sabray oo saanbaa aha welina maad awoodidba inaad guursato iskaba guurso laakiin ma aad u awoodid maxaa kuu geeyay inay tiraahdo marmarka qaarkood dantaa kalifaysa marka raggu marka waxaan leeyahay ragow haddaadan cadaalad samayn karin aakhiradiina u naxa oo adduunkiina u naxa oo cuquubaa kaa soo gaari karta oo ilbaa kaa soo gaari karta oo balaayaa kugu dhici karta arrimahaasoo dhan baa lagaaga digaya marka maba awoodidba siduu nabiga sal alay wasalam sheegayna waxaa imaan yani waxa weeyaan nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam wuxuu imaan doonaa ruuxa saas sameeya isagoon waxba awoodin oonan awoodin naag labaad ama naag saddexaad ama naag afaraad isagoo iska guursado un bilaa indho kadibna ku fashilma oo u cadaalad sameyn waaye nabigu sal alay wasalam wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha ruuxa noocaas wuxuu imaanayaa isagoo dhinac u socda isagoo qallooca dhinac isagoo u badan oo dhinac u qalloocan yuu imaan doonaa buu nabi sal alay wasalam yidhi maxaa kuugu kalifay waxa weeye dee adigaa kor isku qaaday waxaadan awoodi karin baadna qoorta gashatay midna waad gacan bidixaysay midna waad gacan midigaysay midna cadaaladaad u samaysay midna cadaaladaad ka leexisay midda xoogaad isleeda waad jeceshahayna xoogaa waad u iilatay midda kalena hoos baad u dhigtay taabaa kaliftay maalinta qiyaamaha inaad adagoo dhinac u socda yaa aad timaado ogow adagoo dhinac u socdana janno geli maysid nar baad geli saa daraaddeed iska ilaali ha ku kadsoomin ha ku dhowaanin haddii aadan awooddeeda lahayn in badan waa dhacda ragga Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid a dee waxay rabaan unfaankaas inay faanaanoo xoogaa waxay isleeyihiin xoogaa lagu sheego 3 naag buu qabaa iyo 4 naag buu qabaa iyo 2 naag buu qabaa iyo yacni magac noocaasoo kale intay ka raadinayaan kadib bay middii hore oo sabirka iyo dulqaadka kula joogtay bay xumaynayaan bay meesha ka saarayaan marka arrimaha noocaasoo kaleenta iska ilaaliya in badan waan sheegayo il baa ka dhalan karto adigayba il kaa soo gaari kartaa adigaba dhibaato rafaad iyo ka geli kara qaladaadka ragga ay sameeyaan ay ku dhacaan waxaa ka mid a waxay guursanayaan ayagoon markaa cadaalad samayn karin waa midaan ka hadlay midda labaad waxa weeye qaladaadka ugu badan ay ragga ku dhacaan iyagoon aqoonin maaraynta qoyska yay rabaan inay haddana mid labaad guursadaan ama saddexaad mid afraad guursadaan adigu maba garanaysidba sida loo maareeyo kama bixi kartid awooddeedaba ma lihid ka soo qaad xoolaba ma haysatid biilkaba ma siimi kartid laga yaabo xataa arrimaha yacni waxa weeyaan gogasha inaadan xataa awood u lahayn tabarteedaba ma lihid haddana wuu soo guursanaya iska soo guursanaya sidoo kale ma yaqaana sida wax loo kala maareeyo sida wax loo kala sasabo sida wax loo kala waxeeyo markaasaa laga yaabaa asagoo 2 qabay buu 3 soo guursanaya markaasaa kuwii kale markay khayliyaan mid ka mid uu furi ama asagoo 1 qabo buu mid labaad guursanaya markay yara qayliso xooga yara cabaado waxaa loo baahan yahay xooga inuu maareeyo inuu sasabo inuu yiraahdo bal raali noqo bal inuu yiraahdo xooga yacni waxyaabo badan oo aan sheegi doono oo qofka laga doonayo marka uu haweenay guursanayo ama haweenay labaad tallaabooyin inuu qaado laga rabo baan sheegi doonaa insha Allah taala ma qaadi karo ma yaqaano sida loo kala maareeyo ma fahmi karo saa daraaddeed uu iska guursanaya cilmigeedana ma laba dumar uusan garanaynin siday u dhaqmaanaynan garanaynin qaylada yar marka lagu qaylo intuu si xanaaqo baa laga yaabaa inuu haweenayda tii qaylinis gacan u qaado ama uu furo ilbaa ka soo gaaraysa marka rafaad fara badan yaa meesha ka dhalan ilaahay u barakay maayo
midii labaad uu guursaday ama midii saddexaad uu guursaday taamar qaladaadka kamid waxyaabaha kale sidoo kale qaladaadka ay sameeyaan ragga waxa kamid ah dumarku aan soo noqon doonaa ayagana insha Allah ta'ala ragga hadul qaateen qaladaadka ragga kasoo kale kamid dhacay waxa kamid ah ayagoon sabir lahayn bay guursanayaan sabir baa lagaaga baahan bal sabirkii hore aad lahaan jirtay mid ka siyaadsan oo ka kordhisan yaa lagaaga baahan yahay markaad haweenay labaad guursanayso ama mid saddexaad guursanayso ama mid afraad aad guursanayso dulqaadkaaga waxaa la doonayaa inuu farabato maxaa yeelay mas-uuliyaddu waa soo korortay culayska waa soo kordhay yacni waxa weeyaan buuqa hal meel buu ahaa laba buu noqday waxaa lagaaga baahan yahay marka raganimo dheeri ah iyo awood dheeri ah iyo dulqaad dheeri ah lagaaga baahan bal ka war haddaadan dulqaadan ka war oo haddaadan dulqaadanaynin maxaad usoo guursanaysaa adigoo og weliba inay masayrayaan oo ay xumaanayaan adigu marka haddaadan dulqaad lahayn oodan sabir iyo dulqaad lahayn maxaad usoo guursanaysaa su-aashaasaa jawaab u baahan in laga jawaabo u baahan wey waxyaabaha kaloo sidoo kale ragga ku dhaca waxaa ka mid ah ayagoon markaasi ku talagelin buuqa dhalan kara bay guursanayaan oo macnaheedu waxa weeye waa inaad ku talagashaa inuu buuq dhalanayo in xanaaq dhacayo in ifur lagu dhihi karo in yacni waxa weeye xataa jirkaaga wax lasoo gaarsiin karo wax lagugu dhufan karo in wax walba kugu dhici karaan in xataa waxyaabo fara badan ay imaan karaan waa inaad ku sii talagashaa oo aad u diyaarsataa wixii aad ku xalin lahayd oo aad u diyaarsataa wixii aad ku sasabi lahayd laakiin ma aha hub inaad u diyaarsato afgarocnimo inaad u diyaarsato aftahannimo inaad u diyaarsato buuq inaad ku darto caydi cay inaad ku darto dagaalkii dil inaad ku darto ma aha waa inaad usii diyaarsataa marka xalkii waa inaad usii diyaarisaa wey sidoo kale waxyaabaha raggu ku dhaca waxaa ka mid ah soo koobayahay iyagoon mas-uuliyadda aqoon oo aanan ogeyn mas-uuliyadda lagu leeyahay bay soo guursanaya oo macnaheedu waxa weeye dee biilka way u sinaanayaan haweenaydan waxaa siisay baadna tan siinaysaa haddaad baati u geysatan baati u geynaysaa haddaad hatan hadiyad u geysatan hadiyad u geynaysaa labadii habeen ee kan aad u seexatay baad taas u seexanaysaa hal habeen haddaad u seexato tan hal habeen baad u seexanaysaa mas-uuliyaddu way siyaadaysaa saa daraaddeeda waxaa loo baahay ninka inuu fahmi karo isla markaana uu garanayo mas-uuliyadda saaran ilaahayna maalinta qiyaama uu weydiin doono waqifuuhum innahum mas-uuluun wakhifuuhum innahum mas-uuluun inay mas-uuliyiin yihiin waa inay fahmi karaan waa inuu cabsadaa waa inuu baqaa waa inuu yidhaahdaa maalinta qiyaama ilahay maxaan kala hortagi doonaa ma anigoo khiyaanayaa ma anigoo yacni waxa weeyaan aan u cadaalad samaynina miyaa ilaahay isoo saari doona anigoo dhinac u socdo maa la isoo saari doonaa waa inuu ka fikiraa ka baqaa kana cabsadaa waqifuuhum innahum mas-uuluun marka haweenaydu marka midkan dambe oo ah haweenayda in ninkeedu la guursado kadib yimaado ayaan ka hadlaynaa waxyaabaha marka sababa inuu midkan markaa dambe burburka qoyska qayb weyn ka qaato baan sheegi doonaa insha allahu tacala maadaama aan soo sheegay raggu inta ayagu guursada kadib xaaladda ay ku sugan yihiin ragga qaarkoodna inay markaasi xadgudbayaan qaarkoodna inay waxba garanaynin dumarka marka lala guursanayo insha allahu tabaaraka wa tacaala way masayrayaan oo yacni shaki kuma jiro inay masayrayaan wax shaki ah kuma jiro waxaana taa tilmaamaya axaadiista nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa masayri jiray saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa masayri jireen oo saxaabiyaadkii aan ka wadaa ayaa masayri jiray waxaa ugu horeysa caaisha masayri jirta caaisha ayaa masayri jirta taa horta waad ku dabeecaysan tihiin oo idin dhihi maayo maxaad u masayrtaan maxaad kalifay waa dembi ha masayrin lagu dhihi maayo waad masayri kartaa marka ninkaaga uu kula guursado oo caaisha waxaa sugan nebiga sal lla alay wasalam iyadaa maalin isla socday waxay mariyeen meel tog ah bay mariyeen markaasaa intay istaajisay bay waxay tiri rasuul ilaahayow su-aal baan ku weydiinaya bay tiri markaasu wuxuu yidhi iweydii markaasu waxay tiri toggan dhinaciis iyo dhinaca kale bal fiiri waxay tiri markaa bal ka waran bay tiri toggan dhinaciisu hadduu abaar ahaan lahaa dhinacan kalena ay barwaaqo ahaan lahayd keebaad degi lahayd bay tiri markaasuu wuxuu yidhi dee waa sida caadada aheed dhinaca yacni barwaaqadan degi lahaa markaasuu wuxuu yidhi adigoo u jeeda bay tiri bal u fiirsa meesha wax ka wado adigoo u jeeda bay tiri dumarkan quruxda badan leh oo aniga aan ugu horeeyo oo barwaaqadu ka muuqato
sideebaad adigu mar walba ay ugu soo celcelisaa Khadiija iyadoo habar duqowday maxaad ugu soo celisaa barwaaqab isaga jirtaa oo dumar qurux badan baad qabtaay bal u fiirsmeesh wax ka soo gelinaysa masayr baa ka keenay masayr baa ka keenay markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri istajibu Khadiija waxay ii qabatay malab way ii dadaashay way yani waxa weeyaan dadka markay ii beeniyeen bay ii rumaysay xoolaheeda iyo wax walba igu bixisay diinkii dacwada u dadaashay waxyaabo badan u soo taxay nabi sallallahu alayhi wasallam ilaa ay go'aansatay inaysan mar labaad hadalka ku soo celin sidoo kale Aisha waxyaabo far badan baa laga sheegaa mar baa jirtay sidoo kale ay marti u yimaadeen Aisha markay martid u yimaadeen xaasaska nabiga waa iscaawin jireen dhexdooda marka mid kamid ah xaasaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam baa waxay go'aansatay istiri Aisha maanta marti baa u joogtay bal xoogaa wax u geey cunto iyo waxyaabo yani u kaalmee xoogaa wax u geebit markaas weel waxay wax ugu soo shubtay bay tiri bal u geey Aisha martida ha siisay markaas marka loo keenay yaa weelkii intay qabatay jibisay Aisha radiyallahu ta'ala anha markaas nabiga yaabay subxaan dhacay markaas wuxuu Aisha si kastaba haatee waxaad samaysay waaba samaysay waxaad samaysaa buu yiri weelkii aad jibisayna soo gud wixii ku dhex jirayna ku soo shubur hana loo celiyo meesha martidii way arkeen marka in xaaladdu meesha marayso guriga yani waxa weeyaan xogaa buuq soo galay dhulkii wax lagu daadiyay wax la jibiyay waa arkayaan markaas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hooyadiin waa masayrtay buu hooyadiin waa masayrtay buu nabi sallallahu alayhi wasallam leeyahay marka arimahaas oo dhan baa jira arimahaas oo dhan ayaa jira sidoo kale waxaa jira nabi sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa qaar badan oo kamid ah oo saas ahaa iyagana ayaa kamid ah mesela Salama oo kale markii uu ka dhimanayay Abu Salama waatii nabi sallallahu alayhi uu ku yiri Ilaahay bari inuu ninkaaga wax ka fiican Ilaahay kugu bedelo Ilaahayna ay barida tabaaraka ta'ala nabi sallallahu alayhi wasallam markii uu guursanayay uu soo doonay wixii tir rasuul Ilaahay waxa ay guursan bitir sababtu waxa weey xaalado badan baa igu sugan buu yiri xaalada bay tiri xaaladahaasna iguma sabri kartid iguma dul qaadan kartid markaas wuxuu ii soo tiri buu xaalado badan bay soo tiri saan baan ahay haweeney iska waayeel baan ahay yani ii waxyaabo fara badan bay soo tiri kadib waxay tiri waxa kale sidoo kale ii dheer bay tiri waan masayr badanahay bay tiri mar rabay tiri markii inaan ku dhibo aan ku rafaadiyo mar rab markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri intuba waan ku rabaa buu Ilaahay baan ku baryayaa intaba inuu Ilaahay ka qaado masayrkan inuu Ilaahay ka qaado iyo wixii lamida marka masayrku waa jiray xilligii hore laakiin muunan xadka uga bixin sida maanta xadka uga baxay macna waxyaabaha waxaan rabaa markii aan ka hadlo waxyaabaha sababa asaga masayrka waxyaabaha masayrka badan waxyaabaha sababa waxa kamid ah masayrka in ruuxa ku qaldamo ama uu ku qaldanaado waa ninka ka hadlay asaaskii hore ee dhisida guriga ama dhanka kale hadii loo eego xataa haweeneyda ay ku qaldan tahay ninka ay guursatay marmarka qaarkood way keenaysaa ninku marka hadii uu ku qaldan ama haweeney aanan qadarka aan wax badan ka garanaynin oo diintu wax badan aan ka soo baranin oo hadii wax yar ay dareentaba waxay rabto sameeyso iska xad gudbayso gacan qaadayso wax walba iska sameynayso buu iska soo guursaday laga yaabo inuu qurux iyo qabiil iyo xoolo iyo waxyaabaha Soomaalidu baryahan isku doortaan iyo ku doorta laakiin wax diin iyo dhaqan iyo wanaag iyo akhlaaq iyo waxa soo dhan kuma uusan soo dooranin saadaradeeda baa dhacaysa markaas inay masayrto laakiin masayrkeedu u noqdo midkii qaatilka ay wax dilayay wax haleynay wax qarbudayay wax yani wax weeyaan inuu noqdo masayrkeeda laga yaabaa taana waxa sababay wax weey cilmi la'aanta xagga diinta ka haysa yaa sababaysa inaynan wax badan ka garanaynin mas'alada qadarka iyo qadaha Allah tabaaraka ta'ala wax badan ka garanaynin sidoo kale waxyaabaha sabab waxa kamid ah midda hadda afkayga aan ku dhuftayo dumarka intooda badan inaysan garanaynin wax ka badan oo kamid ah mas'alada qadarka iyo qadaha Allah tabaaraka ta'ala aynan markaasi aqoonsanayn isla markaana aynan aqbalin war Ilaahay wax walba waa qadara in ninkaaga markor ku soo guursaday qadar bayad haddana isla qadarkii Ilaahay tabaaraka ta'ala baa wareegaya haweeneydan kale dib laga keenayna de qadar bay ku timid qorshe Ilaahay bay ku timid wax iska dhacay ma jiraan wax walba waxay ku yimaadaan qadar iyo qorshe Allah bay ku yimaadaan tabaaraka ta'ala marka waa inay garan kartaa qadarka Ilaahay tabaaraka ta'ala oo jira qadarullah wama shaa fa'ala Ilaahay baa qadaray Ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa waa inay saadii kartaa laakiin inay xad gudubto
oy waxay rabto samayso waxaa keenaya marka in aynan wax badan ka garanaynin qadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo xukunkiisu inay wax badan ka garanaynin. marka waxaan leeyahay gabarey si kastood u dadaasho iyo si kastood u qurux badanta iyo si kastoo ninkaaga aad ugu roonto kama hortegi kartid qadarka allah tabaaraka wa tacaala. iswaal oo waxaad doonta samee oo marka in badan marka hadalkan waxaa ku keenaya waxa weeye dumar badanaad markaad aragto marka lala guursado markay nala soo hadlaan waxay leeyihin anigu waxba uma weynin bay leeyihin dhinac walbaan ka saacidaa dhinac walbaan wax uga qabtaa yacni waxa weeyaan nadaafadeedu way fiicanta waan qurux badanahay xaggeen la ahay bay ku leedahay xaggeen la ahay dee meel ma li'id sooma laguma diidana inaad qurux badanto laguma diidana inaad ninkaaga u runto laguma diidana in arrimahaas oo dhan laguma diidana laakiin ilaahay qadarkiisu si kastaba ha ahaa ilaahay qadarkiisu mar walba waa siduu ugu talagalay iyuu u dhacayaa. marka waa inaad fahmi kartaayo ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisu aad fahmi kartaa waxaan inuu asaga qorsheeyeyna aad mar walba ay dhagahaaga dhici ka tirahdaa macna. waxaad ogaanaysaa sidoo kale sida adiguba lagugu qoray inuu ku guursado baa iyadana loogu qoray lawxul maxfuudka. lawxul maxfuudka wixii lagu qoray waa sidii loogu qoray waa sidii marka hore adigu lagugu qoray. adigu ma ogtahay arrinta ayada in guurkaagii horeba ilaahay qoray markii ilaahay qorayeyna dee kaligaa laguguma qorin meesha yaa adigu haddaad magacaagu heblaayo lagu yidhaahdo heblaayo kala hoos ku qoran oo heblaayo kala hoos ku qoran oo heblaayo kala hoos ku afar heblaayo baa laga yaaba inay u qoranta ninkaas sanad iyo waqtiguu guursan lahaana waqti la calaamadeeyey oo suntanna it iska daa haddaad wax walba samayso ood cirka isku tuurto oo dhulku isku tuurto waxba kama bedeli karto ilahay qadarkiisa tabaaraka wa tacaala wax kasta ay sida loogu talagalay yay u dhacayaan macnaha. marka waa inaad fahmi kartaa ilaahay waxyaabaha inuu qoro uu jaankooyo inaad fahmi kartaa loo baahan yahay. marka haddii aad tiraahdo marka dee macquul ma aha in ilaahay qoro mana qorin isagaa doonay waa macquul soo isagaa khooqa ka batay bay leeyihin isagaa kibrayey isagaa wax isku arkay isagaa sidaan ma taa waxay caddaynaysaa marka ilaahay qeybkiisaan wax ka ogahayba ilaahay qeybkiisa iyo waxyaabaha ilaahay qoray baan wax ka ogahay macquul maa isagaa doonay mooye ilaahay waxba uma qorin waa beentiis baad taaganta taa hadday tahayna qalad baad ku jirtaa oo nebigaanba xataa qadarka wax ka ogeyn nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isaga ayaanba qadarka wax ka ogeyn adiga iska daay waana midda nebigu sal lla alay wasalam uu leeyahy qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila maa shaa allah walow kuntu aclama alghayba lastakhartu min alkhayri wamaa masani suu nebiga salawaatu rabbi wasalamu aleyh wuxuu leeyahay war nafsadeeda waxba uma hayaan wax wanaagsan iyo wax intuba ilahay baa ii haya tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu doono unbaa doonan haddaan ahaan lahaa buu yiri walow kuntu aclama alghayba mid qeybka wax badan ka garanaya haddaan ahaan lahaa lastakhartu min alkhayri khayrkaanba badsan lahaaba wamaa masaniya suu xumaanba uguma dhaceen laakiin qadarka waxba kama oga bin wax sal ly slam leeyahy adiguna waa sidaasoo kaleo haddaad qadarka wax ka ogaan lahayd naagba kulama guursateen oo waxaad dhihi lahayd kani naagaa u qoran waa ujeedaa iga wareejiye midaysan naag u qornin keligii u qornay baan guursanaya saasaad dhihi lahayd soo laakiin qadarka waxba kama ogid oo ilaahay tabaaraka wa tacaala keligiis baa garanay. su-aasha waxa weeye ma og tahay in allah tabaaraka wa tacaala kuu qoray inuu ninka ku guursado ma og tahay marmar qaarkood baa muran la keeni karaa sheikow saas maa xaaladu saas ma ahane asagaa rabaye asagaa shukaansaday mooye looma qorin. su-aasha waxay tahay marka adigu markaad soo guursanaysa ma aaminsan tahay in laguu qoray in laisku kiin qoray in calafka isku kiin keenay calafka waa wax la qoray sooma isku kiin keenay ma aaminsanta jawaabtaadu hadday haa tahay haddaad ogolaatay haddaad yeeshay haddaad tiri haa ani asaga guurkeennu qadar buu ahaa wuu qornaa ilaahay baa qorsheeyey qoondeeyey su-aasha waxay noqonaysaa marka maxaadan u ogolaanaynin iyaduna in ilaahay u qoray ninkan ilaa ninku hal kaliya ma aha wuxuu ku ogyahay in ninkan iyadana u ilaahay u qoray oo kugu garab qornayd maxaad ku diidaysaa oonan kaliga uusan ninkan
يعني وحويان إلهي قولين تبارك وتعالى marka taana inaad ogolaato waa taana inaad ogolaato meesha waa ku jirtaa oo aad tiraahdaa anigana ilaahay baa ii qoray iyadana ilaahay baa u qoray ninkan inay guursato waan isku aqornayn agtayday ku taalay way igu soo xigtay soma laga yaabo inuu afar xataa guursan rabo iska daa adigu hal baad ka cabaadaysaa mid saddexaad baa lagu soo wada oo mid afaraad baa lagu soo wada hawlo badan baa ninka meesha ugu qoran soma dad baynan u qornayn hadana oo dadka qaarkood waxa laga yaabo dumar qaar inay yiraahdaan ay caasha iyo ay aamow iyo kulliba nimankooda lama guursanine maxaa kaaga galay kuwaas maxaa kaaga galay maxaa kugu diray ilaahay ba ninkooda uma qorin inuu laba guursado ama saddex guursado ama afar guursado ninkooda ilaahay wuxuu u qoray kaliya in uu ay aamooda aad sheegayso iyo aishada aad sheegayso in uu kaliya qabo kaligood inuu qabo yaa ilaahay u qoray tabaaraka tacaala adigana ilaahay baa ku qoray ninkan ilaahay uu u qoray afarta xaas ama saddexda xaas ama labada xaas marka waa inaad sidaas u kala garan kartaayo in ilaahay maamulkiisa uu meesha ka socdo waa inaad garan kartaa oodan adigu mar walba aadan ugu arkin ninkaaga kaliya inuu asaga maamulka iska wato oo wuxuu doono iska doonayo oo naagtu rabo iska guursan karo oo wuxuu rabo iska dooni karo ha u malaynine maamul rabbaaniya inuu socdo waa in qalbigaaga mar walba ka guuxayaa waa taa hadduu ilaahay qalbigaaga ka guuxayo mar walba xaaladdu saa u dhacdo waxaad dhahaysaa alxamdulilah ilaahayow adiga waxaan qoray ilaah adiga waxaan qoray sidaad u qortay bayna u dhacayaan waa inaad sidaad tirahdaa ilaahay khayr buu kugu bedeliyaa tabaaraka tacaala arrimaha kaloo mudan laga hadlo waxa weeye inaanan anagu doonaynin waa in la ogaadaa inaanan anagu doonaynin ilaa wuxuu ilaahay doona mooye mana dhacayaan ilaa wuxuu alla tabaaraka tacaala doona mooye guurku dambe allah baa tabaaraka tacaala doonay ninkaagana dee wuxuu u guursaday naceeb adig dad qaarkood waxa laga ka dhaadhacsanba haddii haweenayda lala guursado waa la nacay dumarka qaarkood in badan oo ka mid ah qaabkaas bay u sheekeeyaan waxay ku leeyahay aniga muxuu uga waayaba anaa wax walba u haye anaaba saan u haye yaa dumarka ragga sidoodaba damaca ilaahay baa ku abuuray damaca iyo doonitaanka ilaahay baa ku abuuray damacooda iyo doonitaankooduna afar xaas buu ku ogyahay kama badnaa ninku hadduu afar xaas guursado damaciisu waa yaraaday everyone wax damaca kale oon haweenay ka qabo male laakiin intuunan guursanin weli damac baa taagan adigu isdaali ama isdaalin ama isqurxi ama waxaad doonta samee damac waa iska jiraa hadduu ilaahay u qoray waa kaas waa guursanaya hadduunan ilaahay u qorinna dee adigu kugu kurduqoobi oo naag kaleba kaa aadi maayo qadarka ilaahay baa mar walba socdo annagu marka ma dooni karno ilaa wuxuu ilaahay doona tabaaraka watacaala mooye wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima dooni maysaan ilaa ilaahay wuxuu doona mooye ilaahayna cilmi badana wey xakiim wey ilaahay cilmi buu u leeyahay xaaladan dhacayso ilahay cilmi buu u leeyahay tabaaraka watacaala xakiim weeyo dumarka haweenayda kale dib ka timid ilaahay tabaaraka watacaala xikmad weyn buu ka leeyahay xikmad weyn buu ka leeyahay waxaa laga yaabaa adigaas inay khayr kuuto qaylinaya buuqaya mar hore waxaa laga yaabaa biilkaaga inuu xooga yara yani iska biidha aha laakiin ilaahay markuu naagtaa labaad guursaday ilaahay toosiyeyba oo barwaaqo timid oo khayr yimid oo bashbashi barwaaqo la gaaray adigna danbay kuut caruurtaada danbay ut yaa qoyska danbay ut soo ma marka ilaahay xikmad badan buu ka leeyahay macquulna ma aha xikmad la-aan in wax walba iska sameeyo marka saa waa inaad u garataa tira ilaahay ina allaha kaana caliiman xakiima ilaahay waa cilmi badane cilmi badana weeye xakiim weeye xikmadiisana arrintaa ay ku socotaa waa inaad saas u aamintaa wey macnaha oodan mar walba ay xadgudubkana iska ilaalisaa oo nicmadii kuu soo socotayba aadan iska hor istaagin soo ma waxaa laga yaabaa inaad ku kaliftaba inuu furo kadibna ilaahay nicmada kaala noqdo barwaaqada kaala noqdo khayrka kaala noqdo waxaasoo dhan laga arsaaqda in lagugu yareeyo busaarad iyo balaayo aad ku noolaataa laga yaabaa marka arrimahaasoo dhan ha iska reebin waay ha iska celin marba haddii arrintu dhacday wayba dhacday ka soco waana sheegi doonaa raggu haweenka u sabro u dulqaatay xilliyadaasoo kale inay aada u jecel yihiin waan sheegi doonaa waan soo wadnaa mase waxaad is leedahay waad og tahay
in ay qornayd laakiin waxaad is leedahay xoogaa qalad bay ahaydo in la qoraaba fiicnaynba in naagka lay qoraba ma fiicna ilaan qalbiyadiina wixii kusoo dhici kara baa laga yaabaa inay saa yihiin ma fiicna waa ogahay waa qoranta laakiin xoogaa dulmi weeye aniguba i qabay aniga waxba u hayee muxuu ka doonayaa haweeney kale waa qalad inaad istirahdana macquul wey taa iyada haddaad qalbigaaga soo gelisana ilaahay baad dulminaysaa oo ilaahay baa tabaaraka watacaala kaaga caroon kara hadalka noocaas oo kalenta oo ina allaha laa yadlimu nnaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ilaahay yani waxa weeyaan insaanka ma dulmiyo aadanaha ma dulmiyo shayna kuma dulmiyo ilaahay tabaaraka watacaala walaakina annaasa anfusahum yadlimuun laakiin dadka ayaga naftooda dulmiya marka ilaahay dulmi ha ka filanin oo hadhiin ilaahay waa i dulmiyey ninkeyga ayuu naag kale u qoray ninkeyga ayuu saa sameeyey hadalka haddaad ku dhawaaqdan dee waaba gaalnimay kuu keeni kartaa marmarka qaarkood dii si loo fiiriyo maxaa yidhi ilaahay baabaad ku tilmaamaysaa inuu dulmi badan soo qalad ma qalad marka su-aalaha isku yimid oo dhan waxay kulansanayaan dee khalaas masayr baaba jiraba marka wax masayr ilaada ma jiraan qodobka saddexaad waxa weeye oo arrinka dhalinaya buuqa dhalin kara wuxuu noqonayaa inaynan isku kalsooneyn yaa labada isqaba kalsooni insan ku dhacayn qodobka waa soo celiyey oo qaybihii hore baa idin ballan qaaday inaan qodobkaan soo celin doono oo laga yaabo haweeneyda in is leedahay haddii lala guursado waa lagu nacayaa ama naagta kale yani waxa weeyaan uu kaa raacayaa iyo wixii lamid a in haweeney iska dhaadhiciso marka kalsooni dara noocaas oo kaleentana way imaan kartaa horta kalsooni baan kugu qabaa iyo kalsooni baad ugu qabtaa iyo kalsoonideedaad burburisay waxbaa la sheegaa horta ninkaaga hadduu kula guursado kalsooni ma burburin mana kaaga bixin kalsoonina kaama burburin ninkaaga hadduu kula guursado kalsooni waxaa la yidhahdaa inaad ninkaaga ka aaminsan tahay inuu xaqaaga ilaalinayo ilaahu muu 4 kula guursado uu 3 ila guursado uu 2 ila guursado saas dheh si kastaba ninkayga waxaan aaminsanahay siduu ii jecel yahay inuu ii jeclaanayo siduu ii xanaaneyn jiray inuu xanaaneynayo siduu iga warhan jiray inuu iga warhaynayo inuu xaaladeyda ogaanayo inuu xuquuqdeyda ilaalinayo inuusan idayacaynin inuusan inacaynin soo kalsooni waa taas laakiin kalsoonidan kaloo meelaha ku wadwadaan dee waa sheeko hindi wey hindidu waxyaaba isku yani waxa weeyaan isku baarjilcsaan iyay ka mid tahay wey macnaha marka haweeneydu waa in ninkeeda 100% ay ku kalsoon tahay ninkana sidoo kale xaaskiisu 100% uu ku kalsoon yahay ilaa marmar qaarkood waxaa dhacdaba raggaba in iska masayraan haweeneydu uu ka masayraba uu ka shakiyaba uu tuhum ka qaado uu yiraahdo haweeneydu amayba nin kala shukansataa amayba ninka lala hadashaaba amayba xaaladdu sidaa tahayba maanta dhan inay ku furan tahay shaki nooc kale ah yaa inta maray yaa inta joogay yaa soo galay yaa masuusha ka baxay yaa wax sameeyey maanta dhan waxaa ku furan tashwiish baa ku furan haweeneydana sidoo kale oo in badan waxaa dhacda laftikooda shakiga noocaas oo kale inta iska qaadaan markaasi waxay leedahay waan kugu kalsoonaa kalsoonida xaggee taallaa marka waaba ka shakisan tahay xumaan baad buuga shakisan tahay kalsooni xaggee taallaa kalsooni ma taallo marka waa in kalsoonida la hagaajiyaa oo aad iyo aad loo hagaajiyaa kalsoonidana waxay tahayna sidoo kale loo ogaadaa tuhmadana waa in laga saaraa iyo shakiga iyo qaabdarrada waa in guryaha laga saaraa haddii tuhmo gurigaas soo gasho khalaas gurigaas waa burburay waa burburay tuhmadana sidoo kale diinteenna way nacaysaa malaha way nacaysaa diinteennu ma ogola ina bacda danni ithmun malaha qaarkiis dembi waa buuri ilaahi tabaaraka watacaala leh nabiguna wuxuu sal lay slam iyaakum wadanna fa ina danna akdabu alxadiis malaha iska jira inta badan maluhu waa beene inta badan maluhu waa sheekooyin un iska beena ilaahayna wuxuuba ka soo qaaday waaba dembi inaad wax malayso inaad wax ka shakiso inaad tirahdo ama waxyaaba iska jirjiraan yaa dumar qaarkood sooma sameeyaan telefonkaaba laga celi laayahaba messengerkaa laga celi laayahaba whatsappkaa laga celi laayahaba telegramkaa laga celi laayahayba war ii dhaaf maya fur maxaa furi fur
oo sabab waan baarayaa waxbaan ka raadinayaa dumar baan ka raadinayaa dumar waan la hadlaaya sooma dhulka kama soo bixin waalid baan leeyahay asxaab baan leeyahay dad baan wax isla baranaa dad baan isla shaqaynaa dee inaan isla hadalna waa iska caadi kuwaas maya bay ku leedahay ii fur marka tuhmo noocaas oo kaleeta waa inaysan jirin furidaas iyo codsigaas arrimahaas oo dhan dembi wey haddaad ku dhacdana dembi baa ilahay kugu qoraya tabaaraka watacaala iska jira marka oo tuhmada noocaas oo kale reeraha laga saaro shakigu iyo tuhmadu asal ahaan bayba diintu xaaraantinimaysay asal ahaanba diintu way xaaraantinimaysay dhanka qoyska marka loo eegana wayba kasii daran tahay uguma sii jirtaba dhanka qoyska marka loo eego ma banaana in iska shakiyaan oo tuhmo soo dhe kala dhex gasho haweeneydu waa inaysan ninka tuhmin xaggee ka timid maxaa u soo baahday wax walbaa ku dhici kara jaan buu geli karaa waxyaaba fara badan baa ka dhici kara qaladaasoo dhexgeli waxyaaba badan buu ka dhici karaa ma aha marka inaad tira xaggee ka timid taleefon maxay iga qaweysay baa iska taalaba ya maxay igu soo jawaabi weysay taleefon maxay igu dhageysatay iyo wixii la mida tuhmaa jirta marka xoogaa shaki yar baa jiro ay ka shakisanta way ka shakisanta waxay is leedahay ama wax kuu qabaa ama wuxuu falala hadlayaa ama saasta marka arrimaha noocaas oo kaleenta waa dembi mana banaan in haweeneydu ama raggu ay ku dhaqaaqaan oo raggu yani waxaweyaan dumarkooda ka shakiyaan ninka haweeneyduna ay ninkeeda ka shakiso iyo saas oo kalena waa loo diiday waxaad ogaanaysaa haddaad isku og tahay afxumo ninkaa wuu ku nici doonaa afxumo khaylo yani waxa weyaan muran iyo wixii la mid a haddaad isku og tahay ninkaaga waa ku nici doonaa sidoo kale haddaad isku og tahay muran iyo dood badan ninkaaga wuu ku nici doonaa raggu sidoodaba waa wax la ogaaday xaaladda sideedaba waxaa la ogaaday raggu xaaladda la yidhahda muranka iyo dooda iyo buuqa iyo qaylada inta badan ma jecla sababtaan ku sheegay ragga inta badan ma jecla in xoogaa la juujuubo inay taliyaan bay iska jecelyihin xoogaa in loo tataliyo la yidhahdo xoogaa maxaa saan u samaysay waryaa caruur camal loo canaanto aaday u necbiye ma jecla sidoo kale xaggee ka timid iyo xaggee jirtay iyo xag usoo dahday iyo taleefonka fur iyo howlahaas oo dhanna ma jeclaa dadka qaarkood laga yaaba is yirahdaan waa jacayl ma haweeneyda ninkeeda inay tiraahdo taleefonkaaga fur ya ama wax kale samee jacayl ma naceeb waa naceeb kalsooni daradana waa naceeb ninkaaga waa inaad xaalad kastaba ku kalsoon tahay xaalad kasta ku jire waa inaad ku kalsoontada ka shakisanayn oo tiraahdo war waxaad doontaba samee raggu waxay iska jecel yihiin mataqaanaa xornimada war xorriyadda ha ka qaadina oo ha dhihina macnaa waxaweyaan dabaalnimada ka daaya aad ku wadaan iska jira waxaasoo dhan xorriyada iska jecelin iska raaxaystaan taleefonkooda xor u ahaadaan combyuutarkiisa xor u ahaado xaaladihiisa shaqo xor u ahaado ayuu jeceli laakiin maantana haddii su-aal la weydiinayo qofka soo wacaba yaa waay itus message baa soo yaa waay ma naftaad naga qaadi marka ma jeclaba dumar asal ahaan ragga ma jecla in loo tataliyo iyo in yani waxa weeyaan su-aalaha noocaas oo kalenta la weydiiyo sidoo kale haddaad isku og tahay nadaafad daro cunto xumo ninkaagu ku nacaya wamaa ilaa dalik arrimahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha dumarka yani waxa weyaan lagu naco oo raggooda ay ku nacaan ninkaaga haddaadan wanaajin ama aadan u roonayn ama aadan u dabacsanayn ya waa ku nacaya waxaad ogaanaysaa raggu abaalku waa yaqaanaan raggu abaalku waa yaqaanaan garabkaagana kama bixi doona ninkaaga wuuna kuu abaalgudi doonaa ogow haddaadan arrimahaas kula kicin oodan ka masayrin oodan ka shakin ood kalsooni buuxda siiso ood waxaad doonta samee oo cid walbuu la hadlaya aadan dhihin yaad la hadlaysay yaa oodan dhihin ood mar walba malaha u fiicnayso oo tiraahdo ninkayga waa jeceli war wuxuu raba hala hadlo war wuxuu rabo taleefonku doon ha qabto war doosaaka iska dhex taagnaado war intaa ka baxo iska soo daa hadduu rabo haddaad saas dhahayso ninka inta badan raggu abaalku waa yaqaanaan oo wuu kuu abaalgudi doonaa biidni illaahi tabaaraka watacaala ugu dambayn maadaama waqtiga sii dhacay haddii ay dhacdo in ninkaaga kula guursado maxaa laga rabaa inaad samayso waxa koowaadoo laga rabo yaan rabaa inaan kuu sheego ninkuna sidoo kale waxaan u sheegayaa markaad rabto inaad naag labaad guursato waxyaabaha laga rabo haweeneydu marka haddii lala guursado oo ninkaaga kula guursado
waxyaabaha aad samaynayso waxaa ka mid a waa inaad ilaahay u carartaa adigoo ilaahay baryaya inuu qalbigaaga ilaahay tabaaraka wa tacaala ku hagaajiyo qalbigaaga inuu ilaahay ku toosiyo qisadii Ummu Salama nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu yiri waan ku guursanaya watii ay tiri anigu waxaan haweenay masayr badan watii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri waxaan ilaahay kaaga baryayaa in masayrka ilaahay ka baabiyo sababtu wax weeyaan ducadu sida nabiga sallallahu alayhi wasallam shay haduu jiro buu nabiga sallallahu alayhi wasallam qadarka ka hortagay ya ducada ka hortagaysa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ducada ajiib wey hatta hadii lagu qoray oo masayray tahay oo qalbigaagu ku abuuran yahay qadar bay ahayd way ku qornayde laakiin hadda ilaahay baa ka dul qaadaya oo masayrka ilaahay baa ka qabanaya tabaaraka taala xaaladaas wiliba ilaahay markaad baryayso nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo sheegayna sabirku inama sabru inda sadmati al-ula sabirka lagu sheegayo waa dhufashada koobaad dhufashada koobaad buu nabiga sallallahu alayhi wasallam leeyahay marka koobaad ay xaaladdu kugu soo kororto yaa la rabaa inaad sabarto dul qaadato hadda ma waxaas ma jiraan soo marka wax la qaso wax la rido wax la baabi'iyo alaabta la jijibiyo balaaya la kiciyo ya ninku dhowr habeen laga aamusnaado dhowr habeen xuquuqdiisa la dayaco ya laga yaabo xataa inay carooto baxdo guriga hooyadeed aado xaaladaas oo dhan marka la sameeyo yaa la yiraahdaa hay waa iska sabraa bis خلاص waaba dambawday maxad sabirta sabir ma kaas waa dambawday waxaad rabtaa samaysay waxaad rabtaa ku kacday ya wax badan baad kasbatay dambi badan ilaahay dusha ka saaray marka sabir iyo dulqaad aad la timaan kartaa ama aad la imaaday goorma sabir la imaaday marka sabirta kaas lama yiraahdo ee sabir waxa la yiraahdaa marka koobaad ay xaaladdu kugu dhacdaba inaad tiraahdo alxamdulillaah qadarullah wa ma shaa facal ilaahay baa arrinka qadar ilaahay wuxuu doono sameeyaa ilaahu waxaan ka baryayaa inaad qalbigii ii qaboojiso laba rakac sunna dukato soo weysa qaadato waa inaad tiraahdo ilaahu qalbigii ii qabooji ilaahu ninkan waaba ku dhacay waxaan waxba kama qaban karo xaaladdu waa mid uu isku tagtay ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahu qalbigii ii qabooji saa markaad tiraahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala isla markiiba ducadaada waa aqbalaya waxay meelaha ducada lagu aqbalay ka mid tahay ruuxu markuu ilaahay tabaaraka wa tacaala si toosa qalbigiisa oo jooga ilaahay u barya tabaaraka wa tacaala sabirka iyo dulqaadka wax loo dhiga male oo nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu sheegay sabirku ahad lama siiyo buu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri wax ka qaalisan oo ka wanaagsan sabirka ma u'tiya ahadun عطاء خيرا وأوسع من الصبر أحد لما السيو سيسمو شيء للسيو أو كقالسا صبر كيد القاتك كقالسا إلهي أحد ما السيو بورنا صلى الله عليه وسلم ليه متساد لدى الله ليال وحلو بها وينكو إني يدو القاتان ويصبران هذا أرمها الدعاء هذا هي أرمها الدعاء نينكونا آدم كل سببين إنو بأموكا أتكالات تكتان أما الضمر كي سميدو وكون عبيانات كمين نقط حيلوات قيلسا قيلسيبت ووضع عيتنتا أول حركة سميسا مرة waa ku jeclaa laakiin hada waa ku nacay sababtu waxa weey dumarka uu qabo de kuwa dib ka yimid way fiican waa luhuba laakiin waxa ku daaray iska amst maad karti isku yeeshid maxay kaaga haweenay kale maxay kaaga sii jiidanaysaa ninkaaga maxay jecel ugu abuuraysaa adiguna aad buuq ugu furaysaa meesha ma ku jirtaa meesha ma ku jirtaa isla markaba qadarka aqoonso istoosi hagaaji jirkaaga يعني حويان قريقا هجاتشي نينكاga jacayl kii ka badan basiiba خلاص inta saa kugu filan waxaan rabaa ugu dambeyn inaan la dardarmo ragga waxaan leeyahay guursada oo dumarka rabtaan guursada oo tirada rabtaan guursada laakiin si xikmadaysan u guursada si xikmadaysan wax u guursada si xikmadaysan wax u kala dabara ogaadaysa inay dumarka masayr badan yihiin in wax walba lagu sameyn karo in lagu qaylin karo in xaalad walba ay dhici karaan laakiin xikmad waa in leedahay qof xikmadaysan waa inaad af Soomaaliga wax badan ka yaqaan dumarka sasabi kara dumarka waxa uu kale hadaa sasabto ya wax badan baa yani xooyaan isbedeli doona waxyaabaha marka hal iyo laba soo qaadan soo gogoynaya waxyaabaha laga rabo ninku markuu rabo inuu haweeney kala guursado yaa raba inaan wax yar sheego macnaheedu ma aha inaan dhahayo hala guursado ya dumarka ko laga yaabaa inay is yiraahdaan war ustaadu meel badan baa laga dhageysanaya inaga daa rag wax nagu dirine oo wadaha u furin may wada looma furay laakiin waxa loo sheegayaa xaq baa loo sheegayaa diin baa loo sheegayaa mar hadaad bayay ka soo go'do oo rabto inaad guursato talaabooyin baa jira la qaadayo inaad qaado loo baahan horta kow
naagtaada hala guursanin iyadoo wax tabanaysa qodobka meel ku qorta hala hariiqo hala guursanin haweeneydaadu iyadoo wax kaa tabanaysa مثلا labadiina isdagaalsan مثلا يعني waxa weeyaan iyadoo yani waxa weeyaan waxaad u ballan qaaday iyadoon siinin adigoo yiri biilkan ku kordhin aadan u kordhin ha guursan sababtu waxa weeye xaaladaas waxay noqonaysaa xaalad xasaasiya ugu dambeynna waa lagaaga garhelaya waxay ku leedahay anigu waxa soo ii ballan qaaday ma siinin wana guursaday biilka waa sidaan waxba kuma darin wana guursaday guriga sidaan waan ka badali buu yiri uusan badalin been buu sheegay wana guursaday الله مرك وحي عنيق أنكر بي مو إسيو هبيس كجورسده العقوة بهايي يا مدام قلنا كلا جورسده العقوة بهايي مو حتى حقوق ذي إلى عليه ذهب ويبلغ قادم إسيو جوري إنه يقبل يقبل قادم إسيو حالة بدن أو لقاك جرهلي كراكوس وبعي صدرات لقاك بهاي إن هذا يعني وحويان عاد حالها صورنا صار جرت يا وين إذا واحد صوت أبلغ قادسي iyadoon waxba hadaad guursato lagu dhihi doonin waxaasna idan lagu dhihi doonin ya guurkaaga dhaco toma waxa kale sidoo kale talaabada labaad oo ka rabo inaad qaado wax weey oo labaad haweeneydaadu waa inaad intaadan guursan koor waa inaad u badisaa wanaag waa inaad u badisaa hadiyadaha waa inaad u badisaa يعني قرحين تجير كذا قرحين يسوى إناد بديسا حنانين تيدوا إناد بديسا ومهم ومهم قدب كلامه كل شيء جيو هدي ده أبدي درينسي إناد جعشة هكار أنت هذا جورسن هدي كلام حد عيسو إلا هو بكل بمية يا بريها بمكان دريمي وجي كوسيت إيو بلايا كا مصيبة كسر ند مالما هم بشيدان بكسرنا يعني لقولي هندودي ورانو أبدي خسرك وبدي دول عدينت وبدي يعني وحوي أنا أرمها جوجش عطا وبدي حيا بدن سمع سحركة هذا تسوي معنا لكن يلا وحنا يلا قات ثمن هذا وح لقات ثمن أيوه هسكو جورسن مناسبة وحوي هذا وح لقات ثمن أيوه هسكو جورسن باهتر قالك سيد حال قدام بيكون شيء وحوي مركو جور كاغسور دبادو وحسبين إنسان أو ترى إنها هوين إذا أشيك أو طبعا كتاس وعن كور مرينيا هلا أغلى قلب هوين إذا ذو لا تشو هوين إذا بينها أشيك ولي بينها أشيك بيني كاجا بارانين مرول بلا تشو مرول بحالة أوبن ديجو بيني كاجا باران معنا حدي ولي بين كاجا بارين شرتي خلاص كو أمين ميس وحيس له خلاص بيرين بين بالجوجو بدي دونا يا biilku wuxuu yaraa qasi jiray oo dhigi jiray anaan ku soo tuura insha Allah waxba ma soo tuuri jirin waxba isku dhex yara qasi jiray been buu ugu waday sooma been baa lagu dhaqamay ilaadan dumarka saas ugu waday hadana waa guursaday beenti mid ka daran ma oo hadana maliiga sii daraayo waxa soo dhan baa laga yaabaa iska dhaadhiso adigu marka waxa laga doonayaa inaadan fursad u siinino run loo aad iska noqoto marka hore inaad ahayd ruux run badan oo runtu u sheega oo hoos gala oo u dhow inaad ahayd laga rabo qodobka saddexaad ugu dambeeya waxa weey marka aan gudgalaya markaad rabto inaad u sheegto oo rabto inaad marka isbiimayso tiraahdo haye waxaan rabaa markaan inaan xaaskayga u sheego waxaad samaynaysaa horta tan waxaa meesha ka baxaysa inaadan u sheegin taana meel ku qorta rag badan baa sameeyo dumarkooda ka qariya markay guursanayaan ha ka qarinin u sheeg runtu u sheeg ha ka qarin weliga ha ka qarin iska jir arrimaha noocaas oo kale inta arrimaha lagu halaagsamay oo haweeneyda si kastay kugu kalsoonid dari ka qaadaysa wax ma iga qarsatay wax ma noo kala socnayn maxaa dhacay baa meesha soo galaysa eed baa soo galaysa waan laga garhelaya waana qalad haweeneydaadu inay meel kale ka soo ogaato adigu u sheegi kara dee isku shoor baatiin sooma kalama shartatiin isku shoor baatiin sooma waxaa laga doonayaa marka haweeneydaadu inaad isku tala noqotaan sooma inaad isku tala noqotaan ma aha in haweeneydaadu dad kale usoo sheegaan adigaa u sheegi karee adigaa la tashan karee waa in saaxiibtinimo idinka dhexaysaa hadda baryahan qoysasku saaxiibtinimo kama dhexayso maamaha bay degsadeen been ah soomaalidu waxay yidhaahdaan
نيني حاسكيس علنا ما هشيسنا ما وحاسونا وحشر ما اسكيل عليه وحلقو هلاك سمي ويقيسسكو كبر برين بكمت نيني ناكتيس علنا ما هشيسنا ما وحبك متشيران نيني ناكتيس وين هشيس هذان وين استعلاذان وين صاحب هذان وين ودا جيركو الاليان وين اسكو فرحسن هذان وين السراح اسكو شيغان لبا صاحبود وحي اسكو سمين لهين وين هوينكا نينكا iyo xaskiisa isku sameeyaan علما هشيسنا ما waxaas waxa ku jiraan meesha ka saara ilaahay ka cabsada tabaaraka taala qodobka ugu dambeeyay markaad rabto inaad u sheegto waa inaad jawaab bedel u sameeysaa waa inaad dalxiis geysaa meel dalxiis oo lagu soo dalxiis yaa waa inaad geysaa waa inaad cuntada u bedeshaa waa inaad yani waxa weeyaan qadada u bedeshaa waa inaad tiraahdaa haye bal maanta dalxiis baan aadaynay nakeen ka farxisaa dheelisaa cabaar la sheekaysataa meelaha u wadwadaa sawir ka qaaqaadaa arimahaas oo dhan markaa samayso yaa dhihi waxba raba inaan kuu sheego yaa waxbaan rabaa inaan kuu sheego kadib baa wixii si tartiiba ayaad ugu sheegaysaa maxaan kaloo kaa rabaa markaad u sheegayso iyadoo xaaladda fiican ay ku sugan torto xadgudubkii ay mar hor samayn lahayd ma samaynayso way ka yaraynaysaa maadaama jawi degan ay ku sugan tahay dalxiis aad keentay howlo badan aad u samaysay axsaan far badan aad u samaysay waxyaabo far badan aad yani xoogan u samaysay culayska waa kaa yaraan doona laakiin culays waa jiraya ku tasho kulli culays waa jiraya culayskaas marka inaad ku tala gashaa waa inaadan buuqeeda buuq ku darin waa inaadan dagaal ugu bedelin waa inaadan aflagaado ugu bedelin waa inaad waxaad rabta samay aadan dhihin yaa waxaad rabta samay baa maanta maalbariyahan taagan inaadan dhihin baa la doonaya waa inaad si kastaba qancisaa wey isla markay khaylasana ay ku diyaarsantaa aayado iyo axaadiis nabi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aad ka soo ururisay ood ku dul akhrin doonto oo aad dhihi doonto waa kan ilaahay sidaa buu yidhi oo ilaahay saa buu yidhi oo ilaahay saa buu yidhi tabaaraka watacaala wacdiba u galba markay khaylo bilowdaba oo khaylada saa usii bilaabaysaba ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinu u bilow axaadiista nabiga oo u bilow aayadahi qur-aanka kariimka hadday ilaahay taqaan way aamusi doontaa ma qayli doonto khalaas way kula dardaarmi meeshay kusoo gabagaboobaysaa xaaladahaas waa inaad steebyadaas saddexdaa way fara badan yihiin waan sheegi lahaa laakiin waqtigaa igu dhumay laakiin saddexdaas darajo waa inaad soo martaa kadib waa inaad u sheegtaa markii aad guursanaysa intaadan guursan waa inaad u sheegtaa hala dadaalo ragow dumarka ha loo roonaado oo nabiga sal alay wasalam dardaaran weyn buu ka bixiyey rifqan bilqawaariir buu rifqan bilqawaariir ragow dumarka u tura dhalayaasha u tura buu nabi sal ly slam leeyahy dhalayaasha waa dhalayaal haddaad maanta dhulka ku turto waa siday u jabtay soo ma laabanayso waa siday kaaga xumaatay waa siday cuqdada u qaaday sadeed dhalayaasha ha loo tura buu nabi sal ly slam leeyahy u tura marka una naxariista biidni illahi tabaaraka watacaala hada wabillahi tawfiiq والله سبحانه جل وعلا أعلم.